السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بابا هذا وحبرشة يسون نقط كلا هي 10 كيني أفراد برشة نحوها في الصومالية وحاين 10 كيس التحاد كوكب كويلي مقعة يغيهيسة وهذا مقع قودي مقع قاري وكسوارني واي هذا ما عاو حين بلاونا مقعيال حينا تبا مقعيالدو مقعيالدو marka si guud loo qaybinayo naxwaha saddex ba marka hore loo soo qaybiyaa saddexdaas waxa ay kala ahaayeen magac fal iyo qurub marka magacyaaladu waxay soo gelayaan qaybta qurubyada waaga waa maxay magacyaaladu waa erayo ka mid ah qaybaha erayada afka Soomaaliga gaar ahaan qaybta qurubyada waa ka qurubkan sheegnay waaga erayadani sida magacooduba inoo tilmaamayo waa erayo weedha ka gala halkii uu magacu ka geli lahaa yani booskii magaca buuxiyay markuu magacii maqan yahay isla markaana qabta hawshii uu magacu qaban lahaa way erayada magacyaalada ay way badan yihiin waxaana tiradoodu guud ahaan gaaraan ama lagu qiyaasaa 76 ilaa 80 inta u dhaxaysa magacyaal macna waa waxyaabaha ku cadeynaya in afka Soomaaligu uu ka hodansan yahay luqadaha kale maadaama magacyaaladiisu ay ka tira badanayaan waxa weeye afafka kale way magacyaal oo u kala baxa afar kooxood oo ay hawshoodu kala duwan tahay waana kuwan hoos ku yaal way afarta qaybood hadaba magacyaalku uu kala baxayo magacyaal qofeed waa qayb dadka ah magacyaal tilmaameed way magacyal qofeedka marka la sheegayo waa shakhsi caadiya qaababka loo tilmaamo magacyaalkooda qaababka loo soo bandhigo magacyaal tilmaameed oo ah farta la isugu fiiqo magacyaal lahaanshe iyo magacyaal weydiimeed afartan qaybood ayeen waxa weeye midba wax ka soo taabanana sida uu inoo dhigayo diiwaanka dhiganaha manhajka waxbarasho ee Jamhuuriyadda Somaliland dugsiyada sare way magacyaal qofeed oo kii koowaada magacyaal qofeedku waa magacyaalada ay sida gaarka ah u leeyihiin una qaataan shakhsiyaadka dadku sida hadlaha qofka koowaad ee marka isagu hadlaya la hadlaha qofka oo ah ka labaad laga hadlaha qofka oo ka saddexaad way waa halkii waa qofka hadlayo oo kale iyo qofka laga hadlayo iyo kala la hadlayo saddexaas qaybood ayuu magacyaal qofeedku isagu soo qaybsamaa ama uu wax weey ka kooban yahay waxa aanay u kala baxaan magacyaal qofeedyadu afartan laamood ee kala way markii hore magacyaaladu afar kooxood bay u kala baxeen kooxdii koowaad bay idin taagnahay oo ah magacyaal qofeed magacyaal qofeedka ayaa hadaba u si kala baxa afar laamood ama afar waaxood way kow
magaciyaal madax bannaane, magaciyaal yeele, magaciyaal la yeele, iyo magaciyaal xidhane. afartaas ayay u kala baxaan. waa magaciyaal madax bannaane, magaciyaal yeele, magaciyaal la yeele, iyo magaciyaal xidhane. way bal afartan haddaba aynu mid mid u soo qaadano. afarta laamood ee magaciyaal qofeedka waa hagaag. halkaas suuri waa magaciyaal qofeed weeye. waa hagaag. magaciyaal madax bannaane, magaciyaal yeele, magaciyaal la yeele, iyo magaciyaal xidhane. way qofka kelida ah waa ka koowaad. macnaha markuu leeyahay marka uu isagu waxa weeye ku bilaabmayo hadalka uu isagu isku bilaabayo qofku. way aniga, adiga, isaga, iyada. way waa magaciyaal xidhane marka uu yahay ee uu isagu iska hadlayo. way magaciyaal yeele qofkii ama ciddii hawshan samaysay marka la sheegayo ama iyadu iska hadlayso oo keli ah marka aan wadar ahayn. way qof koowaad oo aan ah, aad, uu, ay. way magaciyaal la yeele waa ciddii hawshu ku dhacaysay. i oo ah markaad adigu iska hadlayso. i casuumay oo kale. waa hagaag. ii oo ii kaala oo kale markaad eegayso. ku iyo kuwo. way xidhane markaynu eegayno qofka kelida ah ee waxa weeye magaciyaal qofeed xidhane. ka iyo ta iyo kii iyo tii. oo marka uu ugu dambaynayo weedha uu ugu dambaynayo ama xagga dambe ka gelayo. waa hagaag. markay wadar ahaan loo eegayaan aynu eegno haddaba. innaga bay ahayd markay kelida ahayd ama aniga bay ahayd. way annaga, idinka, iyaga. way iyaga oo mar saddexaad ah oo labada iyagabaa kala jaada oo midna ay tahay lab midna ay tahay dhidig. way aan, aynu, aydin marka idinka la sheegayo weeyaan. ay. waa hagaag. na, noo, idiin, loo. waa marka uu la yeelaha yahay. way haddaba bal xidhan aan eegno kuwa iyo kuwama. labadaas ayaa xidhane soo noqonaya. way marka aad tusaalayaasha iyo aynu gelino ayaynu iyagana si wacan uga bogin doonaa. waaye si guud baynu u dulmaraynaa insha allah. waa hagaag. magaciyaal tilmaamay oo kii labaad ah ama kooxdii labaad ee afartii qaybood ee waaweynaa ee u qaybsamayey magaciyaal. waa maxay magaciyaal tilmaamay? magaciyaal tilmaamuhu waa eray ama erayo loo isticmaalo cid kasta ama shay kasta oo noole iyo ma noole labadaba noqon karta. way waa cid kasta oo noole iyo ma noole labadaba noqon karta. waa hagaag. marka laysu sheegayo ama farta laysugu fiiqayo ayaa la adeegsadaa magaciyaaladan waana kuwan hoos ka xusan. waa marka aad cid tilmaamayso ama ha dhowaato ama ha fogaatay markaad cid tilmaamayso baa la isticmaalaa magaciyaal tilmaameedka. way tusaale magaciyaal tilmaameed lab keli ah, dhadig keli ah iyo wadar. kan waa lab keli ah. way ninkan oo kale markaad doonayso. kaa, kaas, kii, keer. keer waxa weeye waa baalle. waa waxa weeye cid kaa fog ama qof kaa fog oo meel baalleed ama qoora aad ka sheeda aad ka tusayso qof kale. waa hagaag. keer ama koo. way tan waa dhadigii. taa, taas, tii, teer iyo too. wadar marka aad usoo gudubto. kuwan, kuwaa, kuwaas, kuwii, kuweer iyo kuwo. oo waxa weeye waa wadar meel dacal baydhsan oo xoogaa ka fog aad ka tilmaami karto. way ka saddexaad oo ah magaciyaal lahaansho. kooxdii saddexaad
magacyal lahaansho waa maxay magacyal lahaansho ereyadani sida magacooduba inoo tibaaxayo waa magacyaallo loo adeegsado oo la isugu sheego cid kasta shay kasta ama wax kasta oo la leeyahay cidi leedahay waa cid kasta oo tilmaamaysa shay ay leedahay ama waxay leedahay damacday inay waxa weeye tilmaanto iyadoo aan magaceedii meesha keenin oo ciddaa sheeganaysa aanay magaciisii meesha keenin balse uu magacyaalkiisa keenayo waaye magacyaal lahaansho waa qaybta ugu badan magacyaalada waana kuwan tusaale hoose ku muujisan waaye magacyaal lahaansho keli iyo wadar kayga tayda kuwayga kaaga taada kuwaaga kiisa tiisa kuwiisa teeda keeda iyo kuweeda waaga wadarta bal markay yihiin kaayaga keena taayada teena kuwayaga kuweena kuwiina tiina kuwiina tiina oo labaduba markaa taasna lab iyo dhadig ay tahay waaye kooda tooda iyo kuwooda waaga marka haddii imtixaan oo kale ama layli lagu yidhaahdo inta lagu baneeyo kuwani boosaska ay geli lahaayeen soo geli magacyaalada waa inaad ka aqoonsan kartaa ama waxa weeye ku dhadhaadsan kartaa weedha la raaciyey ee lagu baneeyey barka si aad ugu buuxiso imtixaanaadka shahaadigana aad ba usoo gashaa oo kuwani uu ku badan yihiin way afraad oo ka u dambeeyey ahaa qaybtii u dambeysay ahaa magacyaal weydiineed way waa isagu waa su-aal waana ka ugu kooban waaye magacyaal weydiimeedku waa mid u gaar ah weydiimaha ama su-aalaha waana kuwan hoos ku muujisan tusaale labka waa kan dhadigga waa kan wadartina waa tan way kee tee kuwii kuma tuma kuwama sidoo kale iyama baa iyana jirta oo la bah noqonaysa kuwama waaye halkaana waxaa inoogu eg magacyaaladii iyo qaybahoodii aynu si guud mara usoo dulmaray waxaynu intaa ku joojinaynaa casharkeena qaybta afraad waxaa idinkaga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh is arag dambe oo xiise leh iyo casharadina soo socda insha allah